cashirkan waa cashirkii labaad waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics waxa uu ku saabsan yahay voltage, current and resistance. Voltageka iyo korontada iyo caabiyaha ayuu ku saabsan yahay. Si aan u sharaxno calaaqaadka ka dhexeeya voltageka, korontada iyo caabiyaha ama resistance-ka, waxaan isticmaalaynaa tusaalahan oo ah tank ama haan biyo ay ka buuxaan. Haanta waxaa ku xiran tuubo ayaa ku xiran. Tuubada awood waxay noo siinaysaa biyaha inaan furno aan xirno. Haanta biyaha ka buuxo waxay leedahay quwad sidaa la socotaan. Quwaddaas awood waxay u siinaysaa biyahaas inay ka dhaqaaqaan meesha kore ay aadaan meesha hoose. Biyaha waa quwaddaas waa quwad dabeeciyan ah oo pressure ah. Biyaha markaan tuubada furno biyihii waa qulqulayaan waxay kasoo tegayaan meesha kore waxay aadayaan meel hoose. Meesha kore waxaan dhihi karnaa waa higher potential aan dhihi karnaa. Meesha hoosena waxaan dhihi karnaa waa lower potential ayaan dhihi karnaa. Quwadda si aan u ogaano ay leedahay biyahaas pressureka ay leeyihiin waxaan kala jari karnaa quwadda kore ee isticmaalshay iyo quwadda hoose aan isticmaalnay. Markaan kala jarno waxaan heli karnaa pressureka biyaha ay leeyihiin. Markaan tuubada aan furno biyihii waa qulqulayaan. Biyaha waxa riixaya oo hoos geenaya waa voltagekii ama waa pressurekii waa voltage. Biyaha qulqulkooda waxaan dhihi karnaa waa korontadii ayaan dhihi karnaa. Tuubada xiritaankeeda iyo furitaankeeda waxay noqonaysaa resistance waa wixii ka hortagayay biyihii inay qulqulaan. Biyaha markaan tuubada xirno qulqulkii waa yaraanayaan ama waa joogsanayaan. Biyaha markaan tuubada aan sii dayno biyihiina waa qulqulayaan. Kaana marka waxaan dhihi karnaa waa resistance. Marka biyaha water pressureka waxaan dhihi karnaa waa voltage. Voltage shaqadoodana waxay tahay waxay riixayaan biyahaas qulqulkooda ayay awood u noo siinayaan. Haddaan ka soo qaadano batteriga waxaa ka buuxo charge. Batteriga charge ka buuxo wuxuu rabaa inuu ka tago batteriga uu aado meel kale oo quwadeedu ay yar tahay. Chargekaas waxa riixaya waxaan dhihi karnaa waa voltage ayaan dhihi karnaa. Chargeka qulqulkiisana waxaan dhihi karnaa waa the current ayaan dhihi karnaa. Marka su'aasha waxay tahay maxay tahay voltageka muxuu yahay? Voltage is energy required or work done to move a unit of charge from one point to another point. Voltageku waa tamarta loo baahan yahay ama shaqo la qabto si loo dhaqaajiyo danabka ama chargeka laba meelood dhexdooda ayay tahay. Maxaa lagu cabiraa? Voltageka waxaa lagu cabiraa voltage equals work. W waxay ka taagan tahay work oo loo qaybiyo Q. Q-na waxay ka taagan tahay charge. Work waxaa lagu cabiraa energy-ga waxaa lagu cabiraa ama tamarta lagu cabiraa joules. Charge-na waxaa lagu cabiraa Q. Ama joules waxaa lagu cabiraa quwadda energy-ga. Coulomb-na waxaa lagu cabiraa charge. Coulombs-na waxaa lagu cabiraa charge-ka ayaa lagu cabiraa. Markaan dhahno 1 volt markaan dhahno waxay la mid tahay annagoo isticmaalnay 1 joule oo tamar ah si aan u riixno 1 coulomb anagu si aan u riixno. 1 coulombna wuxuu la mid yahay 6.24 times 10 to the power of electrons. Waxay la mid tahay annagoo isticmaalno quwad 1 joule ah si aan u riixno 6.24 times 10 to the power of 18 electrons si aan u riixno. Battery markaan ka soo qaadano 1.5 volts ah waxay la mid tahay annagoo isticmaalnay 1.5 joules oo tamar ah si aan u riixno coulombs hal coulomb. Su'aal ayaan idin warsanayaa marka su'aasha waxay tahay 25 joules of energy is required to move 10 coulombs charge between 2 points. What is the voltage between the 2 points? Ama waxay ku qaadatay 25 joules tamar ah in aan riixno 10 coulomb oo danab ah ama charge ah laba meelood dhexdooda. Maxay tahay voltageka labada meelood u dhaxayso? Sidaa la socotaan voltageka waxaa lagu helaa work shaqadii oo loo qaybiyey chargekii ama jouleskii oo loo qaybiyey inta coulombs ah. Voltageka marka waxay la mid tahay 25 oo ah joule
ama energy-ga aan isticmaalnay oo loo qaybiyo inta coulombs aan riixnay 10 coulomb ayaan riixnay marka 25 joules oo tamar ah ayaan isticmaalnay si aan u riixno 10 coulombs marka voltage-ka ama pressure-ka aan isticmaalnay wuxuu noqonayaa 2.5 volts ayuu noqonayaa marka su-aasha waxay tahay korontada sidaan u cabirnaa korontada sidii hore aan u soo sheegnay waxay tahay waa movement of electric charge ayay la mid tahay charge-ka socodkiisa ayaa waxaan dhigi keento waxa la yiraahdo korontada dhaliso marka korontada calaamadda lagu garto waa I waxay la mid tahay coulombs per second inta coulombs oo martay fiilada gudaheeda ama inta charge oo martay fiilada gudaheeda markaan cabirno second aan ku cabirno haddaan soo qaadano 1 amp aan soo qaadano 1 amp haddaan dhahno waa cabirno waxay la mid tahay anagoo meesha ay martay 1 coulombs oo charge ama 6.24 times 10 to the power of 18 electrons meeshii ay mareen 1 second markii loo qabtay ayay la mid tahay resistorka marka muxuu yahay ama caabiyuhu muxuu yahay caabiyaha wuxuu celiyaa korontada qulqulkeeda ayuu ka soo hortagaa tusaale ahaan haddaan soo qaadano biyahan tuubadan oo kale tuubadan biyaha marayo wax dhibaato ah ma leh caadi ayay u marayeen laakiin tuubadii haddaan dhexda aan ka xirno wax yar ka xirno waxaa dhacaysa biyihii qulqulkoodii waa yaraanaysaa marka resistance-ka shaqadooda waxay tahay korontada qulqulkooda inay ka hortagaan calaamadda lagu karto resistorka sidaa ujeedaan waa zigzag dadka qaarkoodna waxay isticmaalaan rectangular boxkan oo kale ayay isticmaalaan ayadoo electron flow oo kale ah waxay tahay electronskii ayaa waxay marayaan fiiladii dhexda waa resistance-kii marka wuxuu ka hortagayaa electronskii inay fiiladii maraan ayuu ka hortagaya marka resistance-ka wuxuu ka hortagaa resistance or restricts the flow of electricity korontada ayuu ka hortagaa calaamadda lagu gartana waa ohms ayaa lagu gartaa marka waxaan leenahay resistorkaas waa 10 ohm ohmka marka calaamaddaas ayaan ka hor dhigaynaa asagoo cartoon ah ayaa halkan fikradan ay si fiican maskaxdiina ugu gasho masala waxaa ka soo qaadaa fiilo ka soo qaad ama pipe ka soo qaad tubo voltage-ka wuxuu rabaa inuu riixo korontada inuu riixo ampka inuu riixo ayuu rabaa marka voltage-ka wuxuu riixayaa korontada resistance-kana wuxuu ka hortagayaa korontadii inay dhaqaaqdo korontada laba nooc ayaa u kala baxdaa nooca ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa direct current nooca ku xigan waxaa la yidhahdaa alternating current ama AC direct current ama DC waxaa dhaliyo bateriyada ayaa dhaliyo iyo solar panelska ayaa dhaliyo waxaa kaloo jiro waxa la yiraahdo DC generator ayagana DC generators ayagana dhaliyana waa jiraa laakiin tusaalaha halkaan idinku tusaayo waxaan ka soo qaadanaynaa bateriga iyo solarka DC current waxaa lagu gartaa waxay tahay korontada hal meel ayay u qulqushaa oo hal meel ayay ka tagtaa ayayna ku soo laabataa marka hal dhinac ayay aadaa calaamadaha ama symbolska lagu garto bateriga waxaa ka mid ah sida ujeedaan calaamadan hore oo plus iyo minus ka wadato ama sometimes waxaa la isticmaalaa circle plus iyo minus wato solar panelka sidoo kale asagana waxaa lagu gartaa calaamada bateriga oo calaamadan oo kale laakiin wuxuu wataa laba falaar labada falaar waxay ka taagan tahay qoraxdii oo ku soo dhacday bateriga maadaama solar panelka uu bateri yahay circuitkan oo simulation ah oo ah circuit taxan simulationna wax kale ma wuxuu ku tusayaa circuitka siduu u shaqayn lahaa wuxuu leeyahay battery 1.5 ah batteriga waxaa ku xiran resistorkaasna waxaa ku xiran nal ayaa ku xiran dhibcaha u jeedaan oo socdo waxay ka taagan yihiin korontada qulqulkeedii korontadiina waxay ka tagtay balaaska resistorkay martay waxay kaloo martay nalkii ayay martay marka waa ay ku soo laabatay batterigii dhinaca balaaska hal meel ayay u qulqushay korontada halka meel u qulqusho waxaa loo yaqaanaa DC current ayaa loo yaqaanaa alternate current waa korontada isbabedesho waaye waxaa ka mid ah korontadaas oo kale
korontada aan u isticmaalno guryaha oo nalalka iyo farinjiteerada iyo cuntada aan ku karsano ayaa waxaa la yidhaahdaa AC, waa korontada isbabedesho. Calaamada lagu garto waa sine wave wax loo yaqaano. Sine wave-kana wuxuu leeyahay frequency ayuu leeyahay. Tusaalahan laba koronto ayaan idin tusay. Midda ugu horeysa waa 110 VAC, waxay ka taagan tahay voltage alternate current AC. Tan oo qabto 60 hertz. 60 hertz hertz wuxuu ka taagan yahay frequency. waa frequency-ga isku bedesho. Sidaa ujeedaan sine wave-kan wuxuu leeyahay frequency. Frequency waa qayb dhanaan kaga hadli doonaa, laakiin wuxuu ku sheegaa korontada inta ay isbabedesho frequency-ga ay ku socoto. Waxaa kaloo jiro korontada loo isticmaalo Soomaaliya iyo Carabaha oo kale oo ah 220 VAC, oo iyadana frequency-geeda waa uu ka duwan yahay, waa 50 hertz. Hertz-na waa calaamada lagu garto frequency-ga, cabirka lagu garto frequency-ga. Circuit-kan sidii hore oo kale meeshuu DC ka lahaan lahaa wuxuu leeyahay AC ayuu leeyahay. Korontadii dhibcaha ayaa mathalayo sida hore usoo sheegay. Sine wave ka ujeedaana wuxuu mathalayaa korontada siday u qulqusho. Marna kor ayay u qulqushaa, marna hoos ayay aadaa. Sidaa ujeedaan marna dhinacana u socotay, marna dhinacana u socotay. Marka sharciyo ayaa jiro oo loo isticmaalo sidii aan u soo saari lahayn voltage-ka korontada iyo resistance-ka. Voltage-ka waxaa laga soo qaataa V, waxay la mid tahay I times R. I waa korontadii, R-na waa resistance. Markaad raadinayso korontada I, waxay la mid tahay voltage oo loo qeybiyo resistance. Markaad raadinayso resistance-ka, waxay la mid tahay voltage-ka oo loo qeybiyo korontada loo qeybiyo. Voltage-kan xiraynaa waxay la mid tahay I times R, korontadii times the resistance. Korontada sidaan ku helno waxaan sameynaa halkaasaan xiraynaa, waxay la mid tahay voltage oo loo qeybiyo resistance. Waxay la mid tahay voltage oo loo qeybiyo resistance. Resistance-ka waxaan xiraynaa, resistance-ka halkaasaan xiraynaa waxay la mid tahay V oo loo qeybiyo I, voltage-kii oo loo qeybiyo korontadii. Si aan u helno calaaqaadka ka dhexeeya, tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa circuit-kan. Circuit-ka wax kale ma aha, waa circuit-ka waxay ka samaysan tahay battery ama resistance ama null oo la isku xiray, oo la isticmaalo fiilo copper ah ama fiilo bir ah oo qaadi karto korontada qaadi karto. Taa waxaan dhihi karnaa waa circuit. Waa wax circuit oo isku taxan xiran ayaan dhihi karnaa. Haddii voltage lagu siiyo oo ah 10 volt, resistorskii lagu siiyo 5 ohm, resistorkii lagu siiyo lagu yiraahdo resistorkaas wuxuu quwadiisa tahay 5 ohms ayay tahay markii la cabiro. Su-aasha lagu warsado marka waxay tahay what is the current? Sidaa la socotaan waxaan sameynaa current-gii ayaan xiraynaa. Marka su-aasha jawaabtu waxay noqonaysaa korontada I waxaa lagu helaa V divided by R. Marka waxaan isu qaybinaynaa voltage-kii ayaa waxaan u qaybinaynaa resistance-kii. Voltage-ka waa 10, resistance-kiina waa 5. Marka isu qaybiso I oo ah korontadii 10 divided by 5 wuxuuna siinayaa 2 amps. Sidaa la socotaan I waa korontada waxaa lagu cabiraa amps ayaa lagu cabiraa. Marka I waxay la mid tahay korontada meesha marayso, circuit-ka marayo wuxuu la mid yahay 2 amps ayuu la mid yahay. Tusaalihii kale haddaan soo qaadano oo markaan nala warsado resistance-kii ayaa nala warsada ama resistor-kii waxaa la yiri qiimihiisu muxuu yahay. Sidoo kale resistor-ka haddaan xirno halkaan aan qarino waxaa noo soo baxaya voltage-kii oo loo qeybiyey korontada loo qeybiyey. Marka resistance waxay la mid tahay voltage divided by the current. Voltage-ka waa nala siiyey waa 10 volt batterigii. Korontadiina waa la soconaa korontada maraysa circuit-ka waa 2 amps. Marka waxay noqonaysaa resistance-kii waxay noqonaysaa 10 divided by 2 amps. 10 volt divided by 2 amps. Jawaabteedana waxay tahay resistorka circuit-ka ku jiro wuxuu noqday 5 ohms ayuu noqday. Calaamadda la socotaan waa ohms. Marka dambe waxaana la siiyey voltage-kii ayaana la warsaday, waxaana la siiyey korontadii, waxaana la siiyey resistor-kii qiimihiisa ayaana la siiyey. Waxaana la yiri raadiyo voltage-kii.
haddaan voltageka aan xirno waxay la mid tahay I times R ayay la mid tahay korontadii oo lagu dhiftay resistanceki I waxay la mid tahay 2 amps korontada circuitka maraya waa 2 amps resistorskiina wuxuu noqday 5 ohms ayuu noqday marka voltageka waxay la mid tahay 2 amps oo lagu dhiftay 5 ohms waxaan helnay 10 volts ayaan helnay